lixdankii USB baynu ahayn inagoo cirifka u xignay iyo cirifkii kale ayaynu muxuu ahaa isku soo tallaabsanay isku soo boodo maanta fursadda bannaan waxaan halkan baaq uga diraynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Somaliland ee aaminsan midnimada Soomaaliya inay idinka nagu soo daydaan oo ay u yimaadaan muxuu ahaa midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya soo dhawaad wanaagsan wadankiinii u baatimaadeen kii u baatimaadeen maanta oo maayeeday maalin wanaagsan hadii Ilaahay yiraahdo maanta waa soo dhaweyn wixii kale hoosaana waa la isooran dagaalna ma jiro xilna ma jireen nabad baa lagu yimid nabad baa la isku warsanayaa waan isku dambeynayna wada soo reesanaynaa ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Xasan Maxamed Bulaale ayaa uga mahadceliyay odayaasha dhaqanka imaanshiyahooda Muqdisho iyo inay hormuud u yihiin danaha bulshadooda loogana baahan yahay in ay dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeeyaan midnimada iyo madax bannaanida qaranka Soomaaliyeed waxaan kaga mahadnaqaynaa oday dhaqameedyadiina oday siyaasiyiintiina iyo ganacsatada hadda idin la socota guud ahaanba inta ka koobantiin mid walba si gaar ah waxaan idin leenahay dowladda federaalka anagoo ka mid tarjumayna waxaan idin nahay diyaar inaan qadiyada iyo arrimaha u socotaan miis dheer iyo miis gaabanba aan u fadhiisano idin kala shaqeyno idin ku garab istaagno si aan u helno dad iyo dal midaysan kana shaqeynaya midnimada iyo horu socoshada dalka waxaan u taaganahay mar walba in runtii shacabkeena Soomaaliyeed mustaqbalkooda ee ku sugan gobolladeena aan matalno inay helaan baraar iyo barwaaqo iyo bulsho nabadoon oo xasiloon oo geeska iyo Soomaaliyaba miisaan ku leh haddana waad ku leedihiin horena waa uga shaqeyn jirteen midnimada haddana mar labaad ayaad keentaan caasimadda oo u keenteen dowladda federaalka annagana waa idinka ayidnay waana idinkula shaqeynaynaa heer walba oo aan ku gaari karno midnimada iyo hadafka guud ee dadkaas ay leeyihiin Maxamed Soofaysan Shabelle TV Muqdisho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلنا هادين مهتدين إله نغدق كوها نوصن dadkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka gufaaco ka dhageysanaya radio Boorame kana daawanaya Somali Kaliya TV barnaamijka gufaaco maanta maalin axad bisha August 4 2024 barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa waxa soo dhaweyn loogu sameeyay siyaasiyiin ganacsato salaadiin beesha Gadabuursi iyo beesha Ciise oo shalay markay ahayd sabtidii ka soo degay oo bishu ahayd 3 magaalada Muqdisho iyagoo salaadiintan iyo siyaasiyiintu sheegay inay u socdaan midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo iyaga oo u socda dhisidii awdal state oo ah gobolada Soomaaliya kamid ah oo state beesha Gadabuursi iyo Ciise haddaba dadka barnaamijka dhageysanaya waxa aynu ku soo qaadanaynaa walaalayaal oo halkan kala hadlaya dhammaan dadka jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa beesha Ciise iyo beesha Gadabuursi Soomaalidu hore waxay u tiri war lehel tala lehel maanta waxaynu u baahanahay mujtamaceenu labada beelood inay gacmaha isqabsadaan iskuma qabsanayaan inay duulaan dad ku duulayaan maya waxay gacmaha isku qabsanayaan waxay tahay danta gobolkooda iyo deegaankooda inay ka tashadaan waxaad ogeydeen bishii ina soo dhaaftay in shir uu ka dhacay xaq u ahaa midnimada labada beelood ee beesha Ciise iyo beesha Gadabuursi oo ay ka qayb galeen shirkan ay joogeen dalka Djibouti hogaamiyaha Awdal State Movement Dr. Ali Bahar iyo beesha Ciise oo shirkaasi ka dhacay dalka Djibouti iyadoo wada hadalkaasi uu yahay wada hadal qiimo leh oo hordhac ahaa waxaad ogeydeen hadaladii saxaafadda Somaliland ka baxay
iyo meelo kala duwan oo si kale loo turjubay oo ahayd in la yidhi jabhadaa la wadaa dagaal bay dowladda jabuuti ka dambaysaa waxaasoo dhan ay ahayd propaganda loogu talagalay ummadda jahawareer in lagu geliyo in badanna dadku waxaa loo baahan inay ogaadaan aan wada hadallo waana heshiina wey beesha ciise iyo beesha gadabuusi waa dad wada dhalada oo inan iyo abtigiiya sida isaaqa iyo gadabuusigu ay u wada degaanna u wada degaan waxaanad ogtihiin dagaaladii sokeeya in siday isku cafiyeen gobollada waqooyi oo dhan iyaguna xaq u leeyihiin inay isku cafiyaan waxaad ogeydeen dowladda jabuuti ee maanta ay ka cabanayso somalilan wanaaggii iyo sharaftii ay u samaysay soomaaloo dhanna ay u leedahay oo weliba soomaaloo dhan maanta haddaanay jabuuti jirin waxyaalo badan inoo suurto galeen nebiguna uu yidhi sala allahu calayhi wasalam waman lam yashkuru naasa lam yashkurullah ninkaan dadka u shukriyin ilaahay uma shukriyin waxaynu la wadaagaynaa arrintan iyada ah oo ah samayntii awdal state oo ah beesha ciise iyo beesha gadabuusi oo la rabo gacmaha inay qabsadaan in ay tahay arrin midnimo tusaale u ah oo soomaaliyeed waxaad ogtihiin gobollada waqooyi halka ay kasoo bilaabatay midnimadu inay tahay beelahanna beelihii midnimada wax ka dhaliyay ahaayeen haddaan taariikhda dadka dhalinyarada dib ugu celiyo waxaad ogeydeen beelaha waqooyi degaa inay yihiin beesha ciise beesha gadabuusi beesha isaaq beesha dhulbahante beesha warsangeli iyo beesha gabooyo iyo beelo kaloo fara badan oo degan degaanada ah iyo fiqishin iyo reero kaloo fara badan baa degan meelaha inkastoo ayna tiradooda aada u badnayn haddaba midnimadii aad ogeydeene taariikhda qaybayn haddii ay ka qaadatay beesha dhexo isaaq midnimadaasi ma qayb gasheen mana suurto gasheen waxayse qayb weyn ka qaadatay beesha isaaq oo ay hirgelisay maantana waxaan arkaynaa midnimadii oo khatar ku jirta oo sidii oo kale loo baahan yahay in laga midoobo waxaad ogtihiin january faris heshiiskii ay gashay somalilan etoobiya la gashay inuu shacabkii oo dhani kacsan yahay reer walba qadiyadanna tahay qadiyad soomaaliyeed in dhul soomaaliyeed aan la bixin karin dhul muslim aan la bixin karin in base military oo 20 kilomitr ay etoobiya tidhi waan kaga bedelanayaa ictiraaf degaanada ay wax kaga bedelanaysaana degaanadii dadkii ay deganaayeen beesha ciise iyo beesha gadabuusi ay tahay wararkii aad maqlayseenna heshiiskuu yahay in ictiraaf iyo in sheer laga siiyo ethiopian airlines arrintani waxay keentay political crisis in somaliland bay ku riday ethoobiyaay ku riday adduunyadii oo dhan baa ka hadashay weli way taagantay waxaa rabna dadkii dhegaysanaya beesha ciise iyo beesha gadabuusi qadiyadda imaatinka magaalada muqdisho waa qadiyad su salaysan arrintan oo bays u ah in labada reerood isku yimaadaan siyaasiyiintooda isku yimaadaan aqoon-yahankoogu isku yimaado culimadooda isku timaado qadiyadan laga midoobo waxaana rabaa dadku inay ogaadaan marka laga shaqaynayo wadahadal dad oo loogu talagalay ilaahay dartii in maslaxad wax loogu sameeyo in uu ilaahay leeyahay kulan ma jirto ka khayr badan kulan dad iskugu yimaadaan ilaa 3 arrimood ilaahay wuxuu ibnu cabbaas markuu fasirayo waxa uu leeyahay shir iyo faq lama galo 3 baa u khayr badan waa kulamada dadku gabalaan siyaasiyiintu kulan buu galaa aqoon-yahanadu kulan bay galaan waxay galaan baayac mufsarku kulan faq ama kulan ma jirto 3dan ka khayr badan buu yidhi ilaahay iyadoo dadka la farayo sadaqad iyadoo dadka la farayo wanaag oo xumaanta la reebayo iyadoo oo la heshiisiinayo qabiilada oo islaaxu mujtamac arrintana ay tahay arrin salaysan in laga shaqeeyo midnimo in gobolkan soomaaliyeed goboladiisa ka mida cadow soomaaliyeed oo etoobiyana duulaan ku yahay dadka soomaaliyeedna in la kala gooyo oo la kala qoqobo ay firqo cadaab tahay oo la og yahay oo ay ka hor jeedo midnimada
ayaa waxay tahay dowladda Soomaaliyeed maanta beelahani Muqdisho ugu tageen walaaladood Soomaaliyeed oo wax la wada qabsado. Waxaan halkan kala hadlayaa dadka meel walba barnaamijkan difaaca ka dhagaysanaya in la soo dhaweeyo wada hadalladan la fududeeyo sidii maamulka loo hirgelin lahaa. waxaa looga baahan yahay dadka waqooyi deganna sidaas si laag inay qadiyadani u arkaan qadiyad dhaawac ku ah inaanay ahayn, sababtaa degaanka dadka degan midnimo ummad Soomaaliyeed baa asalka u ahaa. dadkuna wuxuu asalka u ahaa wuxuu rabo inaad ka hor timaado waxa ka qurux badan oo dagaal aad ka xigto inaad wanaagga ka shaqayso oo dadku waxay rabaan la shaqayso. dowladnimadu sideedana waa social contract. haddaba dadka i dhegaysanaya waxaan leeyahay ee Muqdisho shirka u jooga ee salaadiinta iyo aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo kuwa kale soo dhaweeyaba jasaakumullahu khayran iyo xildhibaanada iyo wasiirada intaba inaydin halgankan ka midho dhalisaan oo u yeedhaan dadka waxgaradka ay taladu ka go'do oo laga wada tashado siduu ilaahay ina yidhi umuurta dadku inay wada tashiga ballaariyaan. shuura aayad qur'aan weeye, ilaahay wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay dadka la tasho, dadku inay wada tashadaan, ra'yiga ugu wanaagsan la isweydaarto, qofba qofka kala dhegaysto, inay dadku yihiin dad walaalo wada dhashayna lagu mideeyo, degaano ka dhexeeyo, qaraabana ay yihiin. Soomaalina sideedaba waa qaraabo wada yihiin. dadka Soomaaliyeedna inay ogaadaan weeye gobollada waqooyi gaar ahaan Somaliland waxyaalaha dadka lagu kala gooyo waxa weeyaan dadka bilaa luqadda kala duwan yihiin. hadday luqaddu tahay luqad la isku discriminationa, midab oo madow iyo caddaana, diinta oo ah Kiristan iyo Muslim. Soomaali wax lagu kala gooyo annagu ma aragno. dad siyaasiyiin oo cadhaysan siyaasad ay wataana ummad in lagu kala gooyo maaha. dadku inay ka shaqeeyaan weeye sidii ummaddan la iskugu hayn lahaa, noloshan wax looga bedeli lahaa, loo midayn lahaa. waxaanan halkan ummadda Soomaaliyeed ka gaarsiinaya dadkii xaqdarrada ku dhintay shalayna aanu tacsi waalidiintoodii qaraabadoodii iyo dowladda Soomaaliyeed intaba uga tacsiyadeen. adiga oo tafaqatiraa xaamud suldaan cali cilmi suldaan xaamud. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.